السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan munaasabada Ciid al-Adha waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانتم بخير. ciidan iyo ciida kala badan oo soo socdaba nabad iyo barwaaqo iyo dawlad wanaagsan oo idin dhisan ku gaara ilaahayna subhanahu wa ta'ala dhibaatooyinka iyo duruufaha caalamka ka jira ee dhibka ah iyo culaysyada ka jira ee cudurka COVID-19 ugu horeeyo iyo kuwa anaga noo gaarka ah ee amniga iyo abaaraha iyo fatahaadu ay kamid yihiin dhamaantood ilaahay anaga dul qaadan leh. intaas kadib dadka Soomaaliyeed munaasabadan ciidan oo ka faa'iideysanay waxaan leeyahay hal iscafiyo maanta maalintii maxaan ku raadaay ciidii Ciid al-Adha barakeysnad waaye inta danta yar lah loo kaalmeeyo inta waxaysataa inta wax yar u kaalmeyso inta bukata Allah caafiyo inta dan yarta ilaahay ka saaro muxuu dan yarnimada inta kadib walaalayaal dalkeena meeshu maanta marayahay meel xasaasi ah waaye waa meel isku duubnaan iyo qalbi samaan iyo iscafin iyo dulqaad oo kaliya loogu gudbi karo iyo in aan ballamihii aan galnay iyo waxyaabihii aan ku heshiinay inaan dhowrno oo aan maxaan ku yiraahdaa ilaalino. mar kale dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. waxaan leeyahay aan iscafino aan qulubteena nadiifino ducada iyo baryada rabbina aan badino aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.